sheekada maanta waxaynu kaga hadlaynaa 4 nin oo dhibano u noqday weerar uu soo qaaday xayawaanka xoogga badan ee loo yaqaano madax kutiga, gaar ahaan nooca grizzly bearka. Fadlan la grey videoga isla markaana rukumo channelka hadeerba. Kani waa weerarka arxan-darrada leh ee madax kutigu kula kacay Mr. Yevgeny Stakov. Soo dhawaada daawadayaal. dadka qaar waxay tilmaamaan inuusan jirin xilli wanaagsan oo la booqan karo mandiqada Siberia oo dhacda bariga buuraha Ural Mountains ee dalweynaha Ruushka. Inta badan sanadka, dabaylaha barafka wata iyo xaaladda qallafsan ayaa ka dhigaysa mandiqadan midaan gebi ahaanba lagu dhex tamashlayn karin. Laakiin bilaha July ilaa August waa xilliga samarka ee Ruushka. Inkastoo taasi micnaheedu aysan ahayn in Siberia ay baraf la'aan tahay. maalinta wanaagsan ee xagaaga, heerkulka ugu sarreeya meeshan wuxuu gaarayaa 15 digrii. Subaxdii waa baraf iyo dhaxan lafajabis ah. Habeenkiina waxaad u baahan tahay inaad hoos gasho dhowr lakab oo bustayaal ah. Xayawaanada duurjoogta ah ee mandiqadan waa kuwo aan naxariis lahayn si la mid ah sida cimiladeeda. Yeyda, tigerka, madax kutiga nooca loo yaqaano brown bearka iyo shabeellada barafka ayaa ah dilayaasha ugu caansan mandiqada Siberia. laakiin sidoo kale ha ilaawin xayawaanka loo yaqaano muuska iyo yaanyuuraha lynxka oo dhammaantood bedeli kara qof bani aadam ah haddii ayba u baahdaan. dhacdada maanta waxay ka dhacday cirifka koonfureed ee Ruushka, bartamaha buuraha Sayan Mountains oo ku yaala Agaki National Park oo ah qalbiga mandiqada Siberia. si la mid ah sida qaybaha kale ee Siberia, waa meel qallafsan, baraf badan oo ay ka buuxaan khataro badan oo inta badan dadku aysan xamili karin. Kooxdan oo ka kooban 4 nin oo tamashle ah ayaa ka soo safray magaalada Moscow si ay muddo 2 toddobaad ah ugu soo baxaan cidlada. Yevgeny Stakov, Anton Sholkanov iyo Pavel Zunchakov iyo nin kale oo la magacaabin, dhammaantood waxay ku koreen miyiga. waxay ahaayeen ugaarsadayaal khibrad leh, waxayna yaqaaneen sida miyiga loogu noolaado. mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu magaalada u soo galay si uu uga shaqaysto, waxayna ku wada kulmeen barta laga qabanqaabiyo socdaalka baadiyaha ama hiking-ka. 4 nin waxay noqdeen saaxiibo dhiigga isu shuba. Yevgeny ayaa ugu weynaa, wuxuuna jiray 42 sano, kuwa kalena waxay ku jireen da'da soddonaadka. 4 nin waxay haysteen khariidad ku dheggan guriga Yevgeny oo ay derbiga kula dhejiyeen biinan, taas oo ay ka fiirsanayeen buuraha iyo dooxooyinka ay doonayaan inay ku dhex lugeeyaan. 2 sano ee ugu horreysay, nimankan waxay dejiyeen mashruuc ay ku booqanayaan dalweynaha Ruushka oo dhan, taas oo ay ka fiirsanayeen khariidadda. waxay rabeen inay fuulaan buuraha Sayan Mountains ugu dambeyntii, laakiin booqashadooda ugu horreysay waxay damacsanaayeen inay dhex lugeeyaan dhulka cidlada ah si ay ugu raaxaystaan quruxda iyo hawada udgoon ee baadiyaha. waxayna ahayd fikrad ay ku sahminayeen cimilada iyo dhulka si ay ugu soo laabtaan xilligan oo kale sanadka dambe. usbuucii ugu horreeyeyba, sida ay qorsheeyeen, waxay diyaarsadeen wax kasta oo ay u baahnaayeen. habeen walbana meel cusub ayay degayeen. maalintii 8aad, nimankii waxay degeen meel u dhow buur uu webi hoos maro. halkaasna waxay ku nagaayeen 2 maalin iyaga oo nasanayay isla markaana kalluumaysanayay. kadib markii ay ku socdaalayeen buuraha barafka ah iyo dhulka qallafsan 8 maalmood, waxay sameynayeen wax kasta oo ay awoodaan si ay uga hortagaan in shirka cuntada ay karsanayaan ay soo raacaan bahlada duurka ku jira. laakiin fiidkii ugu horreeyeyba, bahal ayaa soo raad qaaday, kadibna wuxuu faqay meeshii cuntada ay ku aasteen. bahalada duurka ku jira oo dhan waxay ogaadeen joogitaanka nimankan in ka yar 24 saacadood. laakiin inkastoo ay u muuqatay in cuntada meesha ay ku aasteen uu soo faagay bahal aan sidaa u weyneyn, sidoo kalena maalintaas ay arkeen xayawaanka qoobleyda ah oo loo yaqaano muuska. khatar iyo walwal sidaa u badan maysa dareemin, laakiin taasi waxay ahayd khalad aad iyo aad u weyn. shiirka hilibka kalluunka ay karsanayaan ayaa wuxuu soo jiitay xayawaanka dilaaga ah ee loo yaqaano brown bearka. xitaa xilliyada xagaaga oo ay ka badan tahay cuntada ay helaan xilliyada kale, bahalada ku nool Ruushka lagama yaabo inay dhaafaan fursad cunto ah. haddii uu xayawaanku xanuunsan yahayna kumaba sii jirto. wax badan ayaa ka khaldanaa bearka soo weeraray nimankan.
indhihiisu waxay ahaayeen xinjir guduud ah, afkana abur ayuu ka waday si aan caadi ahayn ayuuna u xuraaminayay, taasoo laga yaabo inay sababtay cudurka raabiyada ama infekshanka gooryaanka oo maskaxda ka qabsaday. Fiidkii labaad, beeyarkii wuxuu bilaabay inuu soo gaatamo isagoo geedaha isku qarinaya kadib markii uu soo raacay shirka cuntada ay karsanayeen nimankii. Habeenkii oo dhan wuxuu dul wareeganayay kambinka ay degganaayeen nimanka. Waaga ayaa baryey, nimankiina waxay doonayeen inay guuraan, alaabtooda ayayna xirxiranayeen. Anton iyo Pavel waxay laalaabayeen buustihii ay ku seexdeen, halka Yevgeny iyo ninkii kale ay hurdada ka soo kacayeen. Kadib isla markiiba si degdeg ah, bahal weyn oo timo badan ayaa ka soo haaday geedaha dhexdooda, isagoo weliba ku afarqaadlaynaya isbiid aan la qiyaasi karin. Naxdin darteed, qof kasta wuxuu istaajiyey wixii uu samaynayay, iyaga oo ka dhaqaaqi waayey meesha ay taagnaayeen. Beeyarkii hal mar ayuu afartoodaba eegay, si cabsi ah ayuuna u xuraaminayay, xuraamin dhagaha tirtay afartoodiba. Abuurka afkiisa ka baxaya ayay dabayshu dhinacyada u kala tuuraysay. Hal mar ayuuna ku orday Yevgeny oo u yiri dhawaa beeyarka. Qof kasta naftiisa ayuu la baxsaday, iyagoo u orday buurtii u dhoweyd si ay u fuulaan. Qof kasta wuxuu ogaa haddii uu rabo inuu badbaado inay tahay inuu fuulo meel sarreysa. Wax huba ma aysan wadanin oo aan ka ahayn midiyaha ay ku jarjaranayeen cuntada, taasoo aanan waxba ka taraynin beeyarka awoodda badan. beeyarkii dhirbaaxa cidiyeysan ayuu ku dhuftay Yevgeny, taasoo lugihiisa dhulka ka qaaday isla markaana si degdeg ah u jebisay dalabka. Shanqarta dilaaca dalabkiisa ayaa laga maqli karay keynta gudaheeda sidii xabadii oo kale. Bahalkii wuu ka tagay Yevgeny, wuxuuna ceersaday nimankii kale, laakiin mid walba jiha ayuu u cararay, taasoo ku abuurtay inuu ku weeraro midkii uu ceersan lahaa. Kadibna wuxuu ku soo laabtay Yevgeny oo miyir daboolan oo dhulka yaala. Waxay ku qaadatay Anton iyo raggii kaleba inay 3 daqiiqo kaliya ku fuulaan buurta. Markaa kadib ayayna ogaadeen in Yevgeny uusan la socon iyaga. Buurta dusheeda ayay ka soo qooransadeen kambinkii ay degganaayeen. Halkaasna waxay ka arkayeen naxdinta iyo caloolxumada ku dhaxaysa saaxiibkood Yevgeny. Bahalkan wuxuu madaxa kula jiray oo cunayay caloosha saaxiibkood, xitaa iyadoo uu dhiigga ka qobanayay Yevgeny. Haddana abuurka ka baxaya afka beeyarka ayay saaxiibadiis arkayeen, taasoo u muuqatay inay indhaha ka daawadaan, iyagoo weliba cabsanaya isla markaana maqlaya qaylada iyo calaacalka saaxiibkood oo hortooda lagu cunayo. Pavel ayaa saaxiibadiis dejinayay kadib markii ay gacmaha iyo lugaha baraf noqdeen kuna sigteen inay ka soo dhacaan buurta. Yevgeny waa meyd markaan, wax su'aala kama taagna. Hadda jaaniska kaliya oo ay haystaan waa inay xararaan inta beeyarku ku mashquulsan yahay saaxiibkood. Meesha kaliya ay ku badbaadi karaanna waxay u jirtaa 9 saacadood oo lug ah, waana inay masaafadaas soo jaraan inta uusan habeenku soo gelin. Inay meeshaas iska fadhiyaan khiyaar fiican ma ahayn. Cimiladu waxay ahayd midaan la saadaalin karin, haddiiba ay sii sugi lahaayeen gargaar u imaada dhowr maalin kadib. Biyihii iyo cuntadii ayaa ka dhammaaday oo xitaa weliba kabala'aan ayay ahaayeen. Mar qurax ayay mar kale dib hoos ugu soo milicsadeen, waxayna arkeen bahalkii oo dul fadhiya raqda saaxiibkood Yevgeny oo weliba kolba cad goosanaya lugtiisa bidix. Calool adayg ayay iska baareen, waxayna go'aansadeen inay socdaan. Shanqarta qacqacda lafaha iyo hilibka uu roogaya bahalkan ayay mar walba maqlayeen, iyo weliba guuxiisa iyo xuraamintiisa. Goobta ugu dhow oo loo socdo 9 ilaa 10 saacadood ayay ku soo gaareen 7 saacadood oo keliya. Waana guri yar oo alwaax ka samaysan oo door cidla ah ku yaala. Kabahoodii way ka soo carareen, waxayna socdeen iyagoo cagacad, cirbaha ayayna ka dhiigayeen. Goobtaasi waxay ugu tageen lamaano iyagana qayb ka ahaa safarada kambinka, taasoo argagax ku abuurtay markii ay arkeen nimankan dhibaatada ka muuqata. Laakiin waxay sii argagaxeen markii ay maqleen dhimashada Yevgeny. Laakiin fursadda ah in wax un laga soo badbaadiyay Yevgeny waxay ahayd 0. Keliya ma aha in beeyarku jirka Yevgeny ku sameeyey wixii uu samayn karay saacado badan, laakiin cimiladu way isbeddeshay, waxayna noqotay midaan la saadaalin karin oo aad iyo aad u qallafsan. Sida caadiga ah, cimilada Siberia waa midaan la saadaalin karin. Duufaan baraf ah ayaa kacday isla markii 3 nin diyaarad chopper ah lagaga soo saaray aaggaas. Diyaaraddu ma aysan awoodin inay dhex wareegato dabaylaha barafka iyo roobabka xooggan, laakiin waxay hore u soo martay goobtii uu weerarka ka dhacay. Nasiib darro, beeyarkii meeshii wuu ka tegay, wuuna cunay dhammaan jirka Yevgeny.
lafihii iyo wixii soo harayna roobka duufaanta iyo barafka ayaa qariyey. Laakiin 5 maalin oo dheeraad ah ayay baaritaankooda sii wadeen ilaa ugu dambayn ay quusteen kadib markii duufaantu sii xoogaysatay naftoodana ay u baqeen. Yevgeny wuu xijaabtay, waxa ka harayna waxay ahaayeen teendho duntay iyo khariidadda Ruushka oo ay ka buuxaan qorshayaal aan weligood la fulin.